lafta gareen oo ka dhaqaaqay madaxtooyadii magaalada Baydhabo iyo sidoo kale war weyn oo laga sugayo beesha caalamka shirkii fashilmay Jubbaland oo iyadana wada war saxaafadeed rasmi ah oo ay kaga hadlayso waxyaabihii ay kaga tagtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii ay taa markaa kugu horeysay aadna soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan meel dheer nala gaarsiisaan sidoo kalena nagu soo biirtaan saaxiibayaal aynu ku bilowne magaalada Baydhabo iyo deegaano kale oo hoostagaba waxaa lagu daadiyay ciidamadii ugu badnaa oo laga kala keenay gobolada Bay, Bakool iyo qayb ka mid ah Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ka socdaan abaabul aad u xoogan oo uu wado madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen warar iyo xogo kala duwan ayaynu helaynaa xildhibaanadii ugu badnaa ee maamulkaasi ka tirsan qaybna ka tirsan ama hore u soo maray dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ku qulqulaya magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa oo ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Laftagareen iyaga oo waliba ballan qaaday inay diyaar u yihiin garab istaaga cid kasta oo ay doonayaan in ay nidaamka madaxweyne Laftagareen halkaasi ka saarto waa ciidamo mucaarad ah iyo guud ahaanba maamulkii degmada Buurhakaba oo dhinaca mucaaradka la saftay iyada oo hadda xaalad adag la sheegayo in uu wajahayo madaxweyne Laftagareen dhinacii siyaasadda waa uu kaga adkaaday mucaaradkiisa laakiin hadda waxaa la isla tagay dhinaca ammaanka saraakiil isaga si gaar ah uu ugu kalsoonaa ayaa sidoo kale u goosatay dhinaca Buurhakaba iyadoona waliba gaadiid lala goostay hub culus iyo sidoo kale askarba lala goostay haddaba xildhibaanadii maanta gaaray qaarkood oo warbaahinta si toos ah ula hadlay sidoo kale dadkii halkaasi ku sugnaa oo hub culus la gaarsiiyey oo iyagana xildhibaano ka tirsan isla maamulka dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa iyagana si adag uga hadlay arrinta Koonfur Galbeed kuna tilmaamay mid bogaadin mudan oo waliba la doonayo in meesha looga saaro nidaamka madaxweyne Laftagareen mucaaradkiisii Koonfur Galbeed ee Baydhabo uu ka soo eriyayna waxa ay ku sugan yihiin Muqdisho abaabulkii ugu xooganaa ayay wadaan kuwaas oo ay ku doonayaan inay ku garab istaagaan ciidamadan tirabeelka ah ee saacadihii la soo dhaafay lagu soo bandhigay qayb ka mid ah isla degmada Buurhakaba ee gobolka Bay aynu eegno maanta xildhibaano aanan kala har lahayn qaarkoodna mas'uuliyiin hore markaas u soo noqday ayaa gaaray gudaha degmada Buurhakaba ee gobolka Bay sida aad ka daawan kartaan muuqaaladu ciidamada badan ayaa halkaas ku sugan waxa markaas ka mid ah xildhibaanada halkaas gaaray xildhibaanad Foosiyo Maxamed iyo xildhibaan Saadaad Caliyow oo isagana ka mid ah xildhibaanada dhinaca maamulkaasi Koonfur Galbeed iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya si weyn markaasi qayb uga ahaa si gaar ah waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya golihiisa shacabka iyadoona xildhibaano kale ay ku welinayeen safarkan uu ku aaday gudaha degmada Buurhakaba ee gobolka Bay diyaarad ayay ka qaateen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyaga oo waliba ka digay isla qayb ka mid ah Baydhabo gaar ahaanna la tilmaamay in meel aanan sidaas uga fogeyn garoonka diyaaradaha ee gudaha magaaladaasi Baydhabo ay ka duuleen Buurhakaba ayaa xaaladeedu waxa ay tahay mid markaas la ciirciiraysa ciidan tirabeel ah iyo sidoo kale mas'uuliyiin tirabeel ah oo iyagana ka mid ah dadka halkaas ka soo jeeda deegaan ahaan waxa sidoo kale isla Baydhabo maanta lala kulmay oo waliba ka dhacay shir amniga looga hadlayay oo si kulul madaxweyne Laftagareen oo uga canaantay saraakiishiisa inay gadaal amaba iyaga ka dambeeyaan arrinta la xiriirta Buurhakaba ciidamadaasi la geeyay hubka lala goostay iyo sidoo kale gaadiidka dagaal ee qayb ka mid ah magaaladaasi Baydhabo duleedkeeda ku sugnaa ee la tilmaamay in ciidamadan ay la goosteen taliyihii hore ee ciidamada daraawiishta ee degmada Bardaale ayaa ka mid ah ragga hubka la goostay iyo ciidankaba ee ku sugan gudaha degmadaasi Buurhakaba ee gobolka Bay dhaqdhaqaaq aad u xoogan ayaa la dareemayaa haddaba waan eegi doonaa kulankii dhacay laakiin maxaa markii ay gaareen xildhibaanada halkaasi ka dhacay saraakiishii halkaasi ku sugnaa gaar ahaan Buurhakaba ayaa kulan degdeg ah la isugu yeeray xildhibaan Saadaad iyo xildhibaanad Foosiyo Maxamed iyo xildhibaano kale oo aan la soo koobi karin ayaa kulankan la qaatay saraakiisha sare ee hogaaminaysa howlgalkan iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqan ciidan ee looga soo horjeedo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa ay warbixino ka dhageysteen saraakiishu sidoo kale waxa loo sheegay xildhibaanadii halkaas gaaray in ciidanku ay u baahan yihiin qalabeen rasmi ah si dagaalada haddii la gelayona ay noqoto
in madaxweyne Laftagareen si toos ah magaalada Baydhabo loogala wareego iyo deegaanada kale ee ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada isaga taabacsan markii ay halkaasi warbixinta ku dhageysteen kadib xildhibaanada ayaa siiyay saraakiishu amaro iyo sidoo kale guud ahaanba baaqiyo kala duwan oo ku socda ciidamada imaanaya iyo kuwa kale ee halkaasi jooga dadka shacabka ah ee ku sugan isla gudaha degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay inay si buuxda u garab istaagaan ciidamadan qaybaha kala duwan isugu jira ee isaga kala yimid deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhamaantood waxa lagu wargeliyay ciidanka inay ka taxadiraan dadka shacabka ah ee halkaasi ku sugan maadaama shacabku ay yihiin dadka ugu horeeya ee loo baahan yahay in laga fikiro laga taxadiro ammaankoodana la xaqiijiyo sidoo kale ay xoojiyaan difaacyada halkaasi ay ku leeyihiin maadaama laga yaabo in haddii ay iyagu sameeyeen dhaqdhaqaaq ciidan iyo abaabul dhinac walba looga iman karo dhinaca al-shabaab sidaasi oo kale dagaal ayaa kala dhaxeeya ciidamadan madaxweyne Laftagareen dhinaciisana isla sidaasi oo kale dagaal xooggan ayaa kala dhaxeeya haddaba madaxweyne Laftagareen ciidamadiisii taabacsanaa qaybtood gobolka Bokool ayuu ka soo saaray Bay isla sidaasi oo kale iyagana ciidamo ayaa looga yeeray oo aad u tiro badan duleedka magaalada Baydhabo waxaa la tilmaamay in dhaqdhaqaaqii ugu xooganaa oo ciidan ah uu ka socdo waxaana guud ahaanba ciidamadii laga qaaday dhinacyadaasi la geeyay isla duleedka Baydhabo tuulooyin iyo magaalooyin dhowr ah oo waliba diris la ah magaaladaasi Baydhabo ayaana la tilmaamay in lagu hareeriyay ciidamada si ay kaga hortagaan haddii ay dhacdo inay duulaan soo qaadaan ciidamadan Buur-Hakaba jooga looga difaaco gudaha magaaladaasi Baydhabo sidoo kale madaxweyne Laftagareen uu isagu isdifaaco maanta waxaa dhacay kulan amniga looga hadlayay saraakiishii dhinaca Itoobiyaanka ee ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo waxaa la tilmaamay in wargelin buuxda la siiyay taas oo ku aadan in magaalada ay geli karto jabi dagaal maadaama saraakiil uu ku kalsoonaa madaxweyne Laftagareen ay ka baxeen gudaha magaalada Baydhabo iyo duleedkeedaba kuna tageen ama ku biireen dhinaca ciidamada isbedel doonka ee mucaaradka ee ku sugan gudaha degmadaasi Buur-Hakaba ee gobolka Bay dhinaca kale isla sidaasi oo kale magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay kulan degdeg ah oo amniga looga hadlayay tan iyo markii ay soo ifbaxday dhacdadan ee markaasi aadka u xanuunka badan waxaa magaalada Baydhabo kulan degdeg ah ku yeeshay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedkaasi wasiirro kale saraakiil iyo xubno ka mid ah dhinaca beelaha isku abaabulaya gudaha degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay tan oo kale waxa ay sheegeen in uusan horey u dhicin kulankan madaxweyne Laftagareen ayaa dhammaan saraakiisha ka qayb gashay kulankan waxa uu ku canaantay inay iyo qayb ka yihiin in raggaasi ay Buur-Hakaba isku abaabulaan sidoo kalena ay u ogaan waayeen ilaa heer intaas ciidan la eg inta ay ka urursanayaan sidoo kalena ay gooni isku taagayaan inkastoo aan ilaa iyo hadda xog rasmi ah laga helin kulanka haddana waxaa jira canaantaas madaxweyne Laftagareen la tilmaamay inuu canaantay saraakiisha qaybaha kala duwan isugu jirta ee gudaha degmadaasi Buur-Hakaba ku sugan saraakiisha Itoobiyaanka ah ayaa sidoo kale la tilmaamay in kulankan lagu casuumay laakiin taliyaashooda ay imaan waayeen taasi oo ka dhigtay kana careysiisay madaxweyne Laftagareen xaaladda ayaa isbedeshay Koonfur Galbeedna jabi kale oo ka duwan midda ay hadda ku jirto ayay gelaysaa 2 toddobaad ka hor waxaa dagaal xoogan uu ku dhaxmaray gudaha magaalada Baydhabo sarkaal magaciisa la yiraahdo Cabdiraxmaan Niishow iyo sidoo kale ganacsade Cadaawe oo la tilmaamay inuu ka mid ahaa ganacsatada hubka ee deegaanada Koonfur Galbeed si gaar ah magaalada Baydhabo ugu dambeyn waxaa isku dhacaasi kadib la tilmaamay in ciidamada daraawiishta ee gaarka ah ee Koonfur Galbeed ay soo afjareen dhammaan ciidamadii taabacsanaa Cabdiraxmaan Niishow iyo sidoo kale ganacsadahaas iyo ganacsato kale oo la tilmaamay inay qayb ka ahaayeen magaalada Baydhabo dadka sida weyn looga yaqiinay sidoo kalena dhinaca hubka ka ganacsan jiray iyagu laftarkoodu waa ay baxeen Buur-Hakaba ayay joogaan ciidamo badan ayayna halkaasi ku haystaan lama oga waxa ay Muqdisho ama waaniraade dhinaca Baydhabo la imaan doonaan oo ay ugu soo laaban doonaan laakiin cabsi xoogan ayaa magaalada Baydhabo ka jirta ciidamadii Koonfur Galbeed taabacsanaana dhammaankood heegan ayaa la geliyay saraakiishii maanta kulanka lala qaatayna waxaa lagu amray inay sameeyaan taxadir dheeraad ah iyo inay ka fikiraan cid kasta oo isku dayda inay goosato in gacanta lagu dhigo wixii ku soo kordha barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa idinka ayaa noqon doona dadka ugu horeeya ee xogahaasi oo idil hela haddii aad ila dhamaadkana la soo gaartay oo aad nagu soo biirin waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto channelkeennana aad subscribe dhahdo meel dheer nala gaarsiisaan muuqaalkan qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaagtaan saaxiibayaal